Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo khilaaf ka dhexeeya ayaa wareegto isku siya ka soo saaray heshiiskii goordhoweyd uu sheegay Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu galay eelaanka haddeera wax tilaabo ma aysan qaadin. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu sheegay habeennimadii xalay wareegtadiisa ku qayaxnayd inuu tilaabo qaadi doono. Markii u horeysay oo madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble intay isdirireen ama ay kala dhex martay xurgufta siyaasadeed ay soo saaraan waraaq isku si ah ama isku si uga hadlaysa qodobada ay ku jeedo. Sida aynu wada ogsoonahay, wasiirku wuxuu ahaa murashax u taagan xilka xildhibaannimada ee golaha shacabka. Markii uu soo waayay xildhibaannimada waxa uu aaday waddanka Ingiriiska halka uu howlo shaqo ugu safray. Wasiirku kadib habeen hore ayuu wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu heshiis la galay shirkad shidaalka qoda, markaana horaantii hore baa looga digay ay uga digeen dowladaha caalamku inay la gasho Soomaaliya heshiis. Roble ayaa 5 daqiiqo ka bacdi ka soo daba saaray waraaq, halka Farmaajo uu ka soo daba saaray isaguna waraaq uu ku qadacayo inaan waxba la geli karin heshiisa dalka. Xilligan kala guurka ah waxay sheegeen labaduba inaan la geli karin heshiisyo waaweyn ee caalami ah. Sida Ra'iisul Wasaaraha ku xusmeeyay waraaqdiisa, wuxuu sheegay inuu tilaabo qaadi doono, hase yeeshee weli lama qaadin tilaabo. Dhanka kalena, shacabka ku nool magaalada Luuq ee gobolka Gada ayaa si fiican ugu dabaaldegay weyne farxad ku dheehan tahay kursiga Hob 86 ee uu ku soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.